sida Excel-ka oo kale inta page 3 furto kuma bilaabi kartid shaqadaada. marka waxaad u baahan tahay in aad samaysto wax loo page 3 company file. fiidiyogan waxaynu ku eegaynaa sida company file-ka aad u samaysan lahayd. halkan waxaad taagantahay start screen-kaaga create new company baad leedahay. create new company markaad tiraahdo dialog-gan yar hore wuxuu ku tusayaa information-ka aad u baahan doonto in lagu weydiin doono waxa weeye in aad ku guda jirto company file-ka samaysigiisa. next markaad tiraahdo waxa ugu horeysa ku weydiinaya waxa weeye company name-kaagi. company name-kayga aan dhaho Ali retail business. noociisu ma weeye ma corporation ba ma partnership ba ma proprietorship business qof qori leeyahay ma limited liability company ba limited LLC company da hoos daashiro kale so non profit or exempt organization. kayga oo kale waxa weeye waa sole proprietorship. ama corporation ma iskala taasoo u baroorsani waa corporation. fiilka ay ku taal astrigo waa fiilka qura ee aan iyadoo maran ka tagi karin. kuwa kale kuwan oo dhan dhammaan waad ka tagi kartaa. halkan adresskaaga waad ku qori kartaa adresskaaga tuuga sibkaagi countrygaagi tusaale ahaan Soomaaliya numberkaagi oo kale ku qortaa tusaale ahaan faqas haddaad leedahay website-kaagi email-kaagi waxaasaad ku qori kartaa. negas baad leedahay. negas markaad raacdo halkani waa halkaad chart of accounts-kaaga aad ka daran lahayd sida aad u samaysanayso. yani chart of accounts-ku waa account waa liiska account-nada uu page 3 isticmaali doono si uu xisaabaadkaaga u taragareeyo u raaco. tusaale ahaan cash khasnada kugu jira aad leedahay waxaad u baahan tahay account oo cash on hand. haddaad sad isticmaasho waxaad u baahan tahay account oo sad account. haddii waxa weeye lacag laga amaahdo oo dadkaada waxaa haysaa account receivable account u baahan tahay. yani waa chart of accounts-kaaga sample company aad kula mid adigu kaaga ku dhowdhow waxa weeye aad chart of accounts aad samayn kartaa. inaad page 3 company kale kasoo koobi garayso, inaad another accounting program kasoo convert garayso quickbook oo kale, inaad adigu accounts-kaaga oo chart of accounts-kaaga aad dhisato. tan waxaa loogu talagalay professional ama advanced use and accountants-ka ayaa loogu talagalay. kan waxa weeye markaad laba company oo laba meelood kala wareeggalay aad leedahay doonayso hadhow financial statement-koodii inaad consolidate garayso oo kaad isticmaalayso waxaa kugu hawli maayo. taa u sareysa ayaa ugu fudud taa daran. negas badaaday halkan waxaad ka dooranaysaa company-kaaga isku dhow yihiin. anigu surface time-ihii halkan waxaa iga egtaa retailer. halkan retail company-ga retail company retail company markaan retail company daarto account chart of accounts-koodii halkan uu soo dhigayaa waxa weeye kuwii uu retail company isticmaali lahaa. hadhow waan iska bedeli karaa waxa weeye kuwa aan rabin haddii ku jiraan waan ka saari karaa. waan kutusanaa kuwa aan rabaaday maqan yihiin waxa weeye waan kusoo darsanay dhammaan waxaas dhan waan kutusi doonaa. halkan waa accounting misurkaagii. marka aynu company file-ka samaynayno waxyaabaha aynu waxa weeye dooranayno qaar hadhow waa la bedeli karaa qaarna lama bedeli karo. tusaale ahaan oo kale waa accounting principle lama bedeli karo. labadan mid dooro accrual accounting method-ka waad isticmaalaysa cash basis-ka waad isticmaalaysa. labadan waxay kala yihiin goormaad revenue-ga iyo dakhliga record garaysataa. oo accrual haddaad isticmaalayso revenue-ga waxaa la record gareeyaa marka la helo oo macnaheedu tahay markaad customer-kii alaabtii ama service-kii aad ka iibiso iyadoo aanad u eegayn goormaha cash qiimi iyo cash inuu yimi yahay kale. expenses-kana waxaa la record gareeyaa markaad deyntii gasho which means waxa weeye markaad expense gasho adaan u eegayn inaad cash ka bixisay yahay kale. ama si kale haddana u dhahdo revenue-gii waxaa la record gareeyaa marka la yeesho expenses-kana waxaa lagu match garayaa laga gooyaa revenue-gii awgeed waay. kan waxa weeye cash basis-ku revenue record garaysanaysa ilaa cash kusoo galo, dakhli record garaysanaysa, kharashna record garaysanaysa ilaa cash kaa baxo. kamaniyada badankoodu cash basis-ka jeer waxaa isticmaalaan bankiska iyo kamaniyada aad ka yaryar. marka accrual basis-ka isticmaalayna negas baan leenahay. halkan aynu taagan waxa weeye waa posting soo koogay. posting waxa weeye transactions-kii aad gelisay ama records-kii aad gelisay sida database-kaagii inta la geeyo financial reports-kaaga iyo report-yadaadii kala duwanaan loo update garan lahaa iyagana loo kaydin lahaa. saddex option aynu haysanaa. real time waxa weeye ka ugu sarreeyaa. real time haddaad doorato marka aad safe tiraahdo ayaa record-kasta la geenayaa report-kiisii. tusaale ahaan financial statement-ka halkuu ka tegayay kaasi waa real time. waxay ku xidhan tahay inaad safe tiraahdo posting-kiina u dhacaya. batch-ku haddaad doorato waxa weeye waa two step buu qaadanayaayo halka transaction waa lagu safe gareynayaa. marka xigta
ayagu guruuba kuwaad safe garayso dhan ugu boosaynaya kan wuxuu chance kuu siinaya transactionadii intaanad boos garayn inaad eegto bal inaad khalaadad ku samayso kale aad review ku samayso wixii ka khalaad saxdo kan smart postingka oo aynu isticmaali doonaa si automatic ayuu u safe garaynaya una boos garaynaya adoon arkayn background ahaan ayuu u safe garaynaya hawsha qoonaya kana ugu performance-ga markaanto wanaagsan kana haddaad kuwan mid doorato hadhow waad ka noqon kartaa oo maintain company information screen ayaad ka bedeli kartaa marka iminkaas aynu doorana anaga span leedahay halkan waxa weeye waa accounting period structure-kaagii waa maxay how many accounting periods badaysa sanadka gudihiisa inaad imisa xisaab xidh yeelato haddaad hal mar xidhato haddaad hal xisaab xidh aad leedahay sanadka ama 6 bilood kasta aad xidho ama 3 bilood kasta ama 4 bilood kasta halkanaad dooraysaa accounting periods that do not match the calendar months kadibna iminka halkan 12 jeer baan xidhaa bay ahayd waxaad ka dhigataa hal mar baan xidhaa oo iminka halkay January February ka hayno kan hal mar waa January to December waa hal mar haddaad 6 bilood mar halkan 2 jeer baad xisaab xidhkaa ka dhiganaysaa January ilaa June iyo July ilaa December waa xisaab xidh haddaad 3 jeer xidho waa kan waxaad dhiganaysaa January ilaa April May ilaa August January ilaa December mar walbana waad ogaataa trading accounting periods ayaa kuu furan markaad isticmaalayso page 3-ga waayo waxa weeye haddii bishii 4 week ka soo qaadno bil kasta hadana waa 4 week sanadku wuxuu noqonayaa 13 bilood min 4 week ayuu noqonayaa okay halkan waxaad ka dhigi kartaa inaad 4 jeer xidho 3 bilood mar January ilaa March ilaa June halkan waxa weeye sanadku kaaga bilaabmaya ma January uu kaaga bilaabmaa halkan January ilaa March waa xisaab xidhkaaga koowaad mise bilka uu ka bilaabmaayo tusaale ahaan wuxuu ka bilaabmaa waan odhan karaa March buu iga bilaabmaa kan March ilaa May way isbedeshay tan waxa weeye waa markaad doonayso inaad accounting period-kaagu ay noqoto mid ka duwanta calendar yearka iminka halkan xorana 12 monthly period xorana naga Spain leenahay accounting period-kaaga ma fiscal year-kaaga wuxuu bilaabmaa January naga Spain leenahay you are ready to create your company finish baan ku fanayaa waan sugayaa waxa weeye inta company file-kii uu ii sameeyo company file-kii uu ii sameysay waan ii furmay oo company file-kaygii waa diyaar waxaan ii keenay page 3 desktop-kaygii maad uu company file cusub yahay waxa igu soo baxay soo dhamaan soo booday setup guard-kan waxa weeye wuxuu ku tusayaa waxyaalaha ku sugayaad qan lahayd buu ku sugayay halkan waad ka setup garayn kartaa customerskaaga waad ku dari kartaa vendorskaaga inventorskaaga chart of accounts iyo halka ay ka bilaabmaysaa waxyaalahaas ayuu kuu soo dhaweynayaa markaad u baahato waad soo furan kartaa markaa xorana dhuna show idna close panel halkan xorana dhuna show close panel waxaan taaganahay page desktop-keeni oo my dashboard baan taagnay waayo halkan inaga isticmaalsan karno oo wax rabno darsan karno sidaas waxa weeye waa sida aad company file-ka aad u samaysanayso